deegaan cagaarshe xilli caalamka u kala tartamaya beeridda malaayiin geed wadamada saxaraha ka cabanayo iyo waliba kuwa aanan saxara ahayn waqti beeridda geedaha siyaasad caalami ah noqotay xilli dhulweynaha Soomaaliyeed looga baahan yahay ku dayashada caalamka ayaa magaalada Laascaanood waxay dhalinyaro iskood isu abaabulay ka aasaaseen 2014 urur lagu magacaabo deegaan cagaarshe si ay u talaalaan ama u beeraan kumanaan geed loogana hortago saxarowga. bismillaahi raxmaani raxiim anagoo deegaan cagaarsha waxaanu maalmahanba magaalada ka wadnay dhirayn si gaar ah waxaan ugu wadnay xaafadaha magaalada oo sakadii walba inaanu maaragtay dhir intaan u qorsheyno aanu kala kaashano bulshada si ay u beeraan marka muddooyinkanba dhirayntii waan wadnay waxaanu bulshada u sheegaynaa inay dhirta fahmaan oo ay wax beertaan shirkadaha guryaha dhisa ama qandaraastana waxaanu leenahay qandaraaska ugu dara guri walba qandaraasan ugu dara dhirta sida hadda shirkadani ay samaysay sakadan oo dhan hadda waxa ka socota dhirayn oo aanu ka wadno hadaan nahay deegaan cagaarshe saasaanu uga wadana insha Allah magaalada waxaana dhawaan furi doonaa hadii Ilaahay idmo xarun ballaaran oo magaalada center u ah taasoo qof walba ugu imanaya geedihiisa iyo shabagiyadiisa waxaan ka wadnaa dhirayn xaafadaha magaalada mid kamid ah dadku waxaan ku boorinaynaa maadaama dabeeliyo wax iska jiraan in dhirta badiyaan si aan difaac dugsi u helno guri bilaageeda waa guri bilaa nolola bulshada gobolka waxaan ugu baaqayaa inay deegaan cagaarshe la shaqeeyaan inay dhirta beertaan maanta waa maalintii deegaanka adduunka waxaan halkan anagii maxamedba ka wadnaa dhirayn shirkadaha gobolka oo dhan waan ku boorinaynaa hawsha iminka ay ka wadaan guri walba inay dhiseenka iyo maaragtay nashqada ugu daraan meel dhirta aad iyo aad bay u mahadsan yihiin shirkadaha gobolka oo dhan say wada shaqeeyaan shirkadda Faynuun aad iyo aad bay u mahadsan tahay markii waxa weeyaan ilaahay tobnaad aan u malanayaa guri ay dhiseen oo aan dhir ku beernay waana shirkadda ugu dhiseenka waxaana wada aragtaan ugu quruxda badan aad ba runtii ula dhacay insha Allah mustaqbalka guriga way dhisi doonaan halkaas hawsh ka soconaysa bulshada waxa ugu baaqanaa inay qof walba geedka ugu soo diyaar garow wixii kale anaga ku hayna nala soo xiriid meelaha bulshada isku timaada inuun oo dhismo fiican magaalada ka wada oo mar walba aan dhirta ilaawin si joogto ah inoo soo xiriiraan inaanu maaragtay meel dhismo walba ay dhisaan inaanu cagaarino anagu marka shirkadda aad baan ugu mahad celinaynaa sidoo kale waxaan ilaaway maanta waa maalintii deegaanka dunida adduunka marka environmental day weeye waxaan bulshada u sheegaynaa in deegaanka la ilaaliyo oo dhirta ugu muhiimsan ee dhirta lagu beero si deegaanka loo sii joogteeyo aynu ka qayb qaadano maalinta deegaanka anagu maanta halkan aanu ku xusaynaayo dhirtii baanu beeray